waxaa magaalada Haamay ee deegaan baarlamaneedka Dhadhaab ka dhacday xaflad qalin jabin ahayd oo si heer sare ah loo soo agaasimay taasoo ay soo qaban qaabisay madrasatu Nuurul Huda. xafladan qiimaha badan ayaa lagu gudoonsiiyay shahaadooyin 22 arday oo si rasmi ah uga qalin jabay madrasada kadib markii ay dhameysteen barnaamij waxbarasho oo dhinaca diinta Islaamka. A'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. tani waxay ahayd dufcadii sagaalaad ee ka qalin jabisay madrasada taasoo muujinayso dadaalka joogtada ah ee madrasatu Nuurul Huda ugu adeegayso bulshada. ardayda qalin jabisay ayaa intay waxbarashada ku jireen bartay culuum kala duwan oo ay kamid ahaayeen tajwiidka quraanka kariimka, naxwaha, ahkaamta fiqhiga, axaadiista iyo qeybaha kale muhiimka ah fahamka diinta Islaamka. intay socotay munaasabadan ardaydu waxay si toos ah u soo bandhigeen aqoontii ay barteen iyagoo akhriyay quraanka kariimka ka jawaabay su'aalo diini ah isla markaana muujiyay xirfado aqooneed oo ay ku kasbadeen muddadii ay waxbarashada ku jireen. marka cadaw tayo la saar mid la waxay markii inta loo baahnaa in ka badan la saaro tayo saad luudka wala socod saddexaad waxay inta loo baahnaa wala saaray laakiin xad baa lagu saara tayo wala socod loo la socod waxay markii inta loo baahnaa la saaray bahana lagu saaray tayo lama socodna mid labaad waxay markii qadul istimtaa ka badan la saaray bahaaran lagu saaray aad lama socodna محمد رسول الله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها السادة والسادات نحييكم ونرحب بكم جميعا فأهلا وسهلا بكم حللتم مهلا ووضعتم سهلا ضيوفنا الأكارم. نحييكم بتحية من القلب يطيب الشداها مسكا وريحانا. نحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاما فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم أيها العلماء الفضلاء والمعلمون النبلاء والحضور الكرماء. اعلموا رعاكم الله أن مكانة العلم في الدين عظيمة ومنزلة رفيعة فقد فضل الله جل وعلا العلم وأهله ورفع مكانة العلماء وميز بين الذين. xafladan ka dhacday magaalada Haamay ayaa waxaa ka soo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada, culummo, odayaal, haween, dhalinyaro iyo waalidiintii dhalay ardayda qalin jabisay kuwaas oo si weyn ula wadaagay farxadda iyo guusha caruurtooda. waalidiinta iyo marti sharafta kale ayaa iyaguna goobta ka hadlay iyagoo muujiyay mahadnaq iyo bogaadin ku aadan maamulka iyo macallimiinta madrasada. halkan waxaa iskugu imaanay xalfad qalin jabine oo caruurtii annaga aan dhalnay ee dugsiga dhiganayeen ay ka qaadanayaan shahaado. waxaan u malaynayaa caruurta ayada maanta uguma horeyso in badan bay shahaado soo qaateen. waa qaybtii soo qaatay qayb ka mid ah oo maantana qaadanayso. ilaahay mahad u sugnaatay iyo intii tacaal la soo gashay ee macallimiinta iyo waalidiintii soo barbaariyay ee halka soo gaarsiiyay. caruurtan maanta shahaadada qaadanayaan kuwa annaga dhalnay iyo kuwa kaleba maxaan ku baraarujinaynaa maanta markay qaataan inay akhriskooda iyo waxbarashada hore u sii wadaan meel ay joogaanba akhrisku inay sii siyaadiyaan. madrasatu Nuurul Huda ayaa maanta noqotay madraso wax soo saar leh oo si weyn loogu amaanay doorka ay ka qaadatay baridda culuumta diinta iyo tarbiyada ubadka deegaanka Haamay iyadoo lagu tilmaamay tiir muhiim u ah horumarka aqooneed iyo midka anshaxeed ee bulshada. gabagabadii xafladda waxaa la gudoonsiiyay ardayda shahaadooyinkooda iyadoo lagu booriyay inay sii wadaan barashada iyo ku dhaqanka diinta Islaamka
si ay mustaqbalka uga mid noqdaan culummada iyo aqoon-yahanada bulshada.